Assalaamu calaykum daawade kusoo dhawaw barnaamijkeena falanqaynta caalamka oo aad horey nooga barateen waa habeenimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 23 May sanada 2026 qaybtan waxaan ku eegi doonaa taliyaha ciidanka Pakistan wuxuu magaalada Tehran kulamo heer sare ah kula yeeshay mas'uuliin waaweyn oo ka tirsan dawladda Iran haddaba maxay ka wada hadleen labada dhinac maxay diiradda ku saareen wada hadalkooda waxaan sidoo kale eegi doonaa xiriirka siyaasadeed iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa labada dal guud ahaan arrimahaas oo idil ayaan isdul taagi doonaa daqiiqadaha soo socda haddii Rabbi ogolaado hagista kale Ivan Trump oo la sheegay in ay bartilmaameed u ahayd qorshe dil oo u maleegay nin lagu eedeeyay in uu tababar ka helay ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran IRGC haddaba maxay tahay bartilmaameedka la sheegay in ninka la eedeeyay u socday argoosi haddaba waa kuma ninka la sheegay in uu argudayay intaan ku guda jirno tabinteena ayaad ku daawan doontaan dhinaca kale wada hadaladii ugu sareeyay Iran oo la sheegay in Tehran aanay wax tanaasula ka sameyn doonin wada hadalada ay leedahay Mareykanka haddaba halkee ayay marayaan dadaalada dhexaadinta goboleed ee hormuudka u yahay Pakistan oo lagu doonayay in lagu yareeyo khilaafaadka u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka qodobadaas oo idil ayaan isdul taagi doonaa balse intaan u gudgalin marka hore waxaan ka codsanayaa muuqaalka like noo saar haddii aadan ka mid ahayn asxaabteena fadlan ku soo bir saaxiibadayada ee Hoggaan Media oo channelka subscribe noo dheh la wadaag asxaabtaada aragtidaadana qaybta hoose ee faallooyinka waa noogu reebi kartaa aniga waa Hashim Adam ku soo dhawaw mar kale iyo barnaamijka falanqaynta caalamka waayahay waxaan ku bilaabaynaa marka taliyaha ciidanka Pakistan Field Marshal Amin Munir wuxuu magaalada Tehran kula yeeshay kulamo heer sare ah ee mas'uuliyiinta waaweyn oo ka tirsan dawladda Iran kuwaas oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian gudoomiyaha baarlamaanka Mohammad Baqir Khalibaf iyo wasiirka umuuraha dibadda Abbas Araghchi Field Marshal Munir wuxuu kulan la yeeshay madaxweynaha Iran Pezeshkian kan magaalada Tehran waxayna labada dhinac ka wada hadleen xiriirka labada geesood ee u dhaxeeya Iran iyo Pakistan xaaladaha gobolka iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyo kala duwan leh haddaba marka taliyaha ciidanka Pakistan wuxuu sidoo kale isla maalinta kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka Iran Mohammad Baqir Khalibaf iyadoo marka la sheegay wada hadaladooda diiradda ay ku saareen balaarinta xiriirka siyaasadeed wada shaqaynta baarlamaanada labada dal iyo sidoo kale arrimaha gobolka ee ay labada dhinac danaha ka wadaagaan labada dhinac ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in Tehran iyo Islamabad sii wadaan xiriirka dhow wada tashiga joogtada ah iyo iskaashiga siyaasadeed dhanka kale marka taliyaha ciidanka Pakistan ayaa gelinkii dambe ee sabtida kulan la yeeshay wasiirka umuuraha dibadda Abbas Araghchi kulankan wuxuu yimid kadib markii wada hadalo hore oo dhacay habeenkii Jimcaha kuwaas oo la sheegay inay socdeen saacado dambe oo habeenkii ah isla markaana diiradda lagu saaray xaaladaha diblomaasiyadeed iyo isbedelada siyaasadeed ee gobolka haddaba kulankii dhacay habeenkii Jimcaha labada dhinac waxay isdhaafsadeen baa la yiri aragtiyo ku saabsan dadaalada u dambeeya ee diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu xakameeyo sii kordhinta xiisadaha gobolka isla markaana lagu taageero dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka oo ay Mareykanka iyo Israa'iil ay ku hayaan Iran waxay sidoo kale labada dhinac hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in nabadda xasiloonida iyo amniga galbeedka Asia lagu xoojiyo wada hadal goboleed iyo xalal diblomaasiyadeed haddaba marka safarka Field Marshal Asim Munir uu ku tagay Tehran ayaa noqonaya booqashadiisa labaad ee dhawaan uu ku yimaado Iran xilli Pakistan marka ay wado dadaalo diblomaasiyadeed iyo dhexdhexaadin la xiriira dejinta xiisadaha gobolka iyo xiriirada u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka waayahay marka qodobkaas haddii aan halkaas ku dhaafno aan eegno dhinaca kale Ivan Trump oo la sheegay in ay bartilmaameed u ahayd qorshe dil ah oo Iran taageero ka heshay Ivan Trump waxa la sheegay in ay bartilmaameed u ahayd qorshe dil ah oo u maleegay in lagu eedeeyay in uu tababar ka helay ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga Iran ee IRGC sida uu qoray marka wargeyska The New Post Mohammad Baqir Saad Dawood Al-Saadi oo 22 sano jir ah ayaa qorsheynayay in uu dilo gabadha curadda ee madaxweynaha Mareykanka Ivanka Trump oo 44 jir ah isagoo arintaasi ku sheegay argoosi uga argudayo geeridii hogaamiyihii uu ku dayashada lahaa ee Qasim Suleymani haddaba ninka u dhashay Ciraaq waxa la sheegay in uu ballan ku qaaday in uu soo afjari doono nolosha Ivanka Trump isla markaana uu haystay naqshada gurigeeda oo ku yaala jasiiradda hodanka ah ee Indian Greek Island oo u dhow Miami Beach gobolka Florida sida marka ilo xog ogaala ay u sheegeen wargeyska Qasim Suleymani oo ahaa taliyihii ciidamada Qudus ee hoostaga ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo Mareykanka ka fuliyay magaalada Baghdad sanadii 2020 haddaba marka Donald Trump oo xilligaasi dilkiisa ku tilmaamay guul siyaasadeed wuxuu yiri waxaan ku qabanay isaga oo falka ku jira dabadeedna waan ciribtirnay ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka
waqtigaasi isagoo markii dambe Suleimani ku sifeeyay maskax shar leh oo xeel dheer. Ivanka Trump oo sawiro badan lagu arkayay iyada oo ay weheliso saygeeda Jared Kushner waxaa la sheegay in ay ahayd bartilmaameedka qorshahan dil. Ciidanka IRGC ayaa ah laan awood badan oo barbar socota ciidamada rasmiga ah ee Iran waxaana lagu yaqaanaa inay fuliyaan howlgallo qarsoodi ah oo ka baxsan gudaha dalka Iran. Sida la sheegay, Al-Saadi ayaa si weyn ugu mashquulay fikradda ah in uu gubo guriga Trump sida uu isagu u gubay guryaheena, ayuu New York Post u sheegay. Intifaad Qambar oo horey u ahaan jiray ku-xigeenka xiriiriyaha militariga safaaradda Ciraaq ee Washington DC. Ninkan oo 32 jirka ah oo la sheegay inuu ka tirsanaa saraakiil sare oo ku dhaxlay saameyn kooxaha argagixisada ee Ciraaq iyo Iran ayaa lagu eedeeyay in uu bartiisa X ku baahiyay khariirad muujinaysa halka uu ku yaalo guriga Ivanka Trump oo qiimihiisu gaarayo $24 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Gurigaas marka waxay kula nooshahay saygeeda Jared Kushner iyo saddexdooda caruur. Sida uu qoray marka New York Post, Al-Saadi ayaa af Carabi ku yiri, waxaan Mareykanka leeyahay bal sawirkan eega oo ogaada in qasriyadiina iyo ciidamada sirdoonka ee Secret Service-ka aysan idin difaaci doonin. Hadda waxaan ku jirnaa marxalad dabagal iyo falanqeyn ah. Horey ayaan idinku sheegnay argoosigana waa arrin waqti sugaysa. Ninkan marka waxaa lagu xiray dalka Turkiga 15 May waxaana lagu soo oogay dacwad la xiriirta 18 weerar iyo isku dayo weeraro ah oo ka dhacay Yurub iyo Mareykanka sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda Mareykanka. Welise si cad looma oga in dacwadahaasi ay ku jiraan qorshaha lagu doonayay ee dilka Ivanka Trump. Waayahay qodobka ugu dambeeya haddii aan eegno wadahadallada ugu sareeya Iran oo la sheegay in Tehran aanay wax tanaasul ah ka sameyn doonin wadahadallada ay la leedahay Mareykanka. Haddaba gudoomiyaha baarlamaanka Iran ahna wadaxaajoodaha ugu sareeya dalkaasi Mohammad Baqir Qalibaf ayaa taliyaha ciidanka Pakistan Asim Munir u sheegay intii wadahadallada ugu socdeen magaalada Tehran in Mareykanku aanu ahayn dhinac daacad ah oo wadaxaajoodyada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka, isla markaana Iran aanan marnaba ka tanaasuli doonin buu yiri xuquuqdeeda qaran. Arrintan marka waxaa lagu baahiyay telefishinka dowladda Iran. Dadaal la dhexaadin goboleed oo hormuud ka yahay Pakistan ayaa lagu doonayaa in lagu yareeyo khilaafka u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka. Toddobaadyo dagaal iyo xiisad ah oo sababay in maranbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz inta badan xirmo. Taas marka waxay si weyn u galgashay suuqyada tamarta caalamka inkastoo xabad joojin jilicsan ay jirto. Warbaahinta dowladda Iran marka waxay sheegtay in Asim Munir uu sidoo kale kulan la yeeshay madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian iyadoo uu goobjoog ka ahaa wasiirka umuuraha dibadda Iran Abbas Araghchi, kaas oo Munir laba jeer la kulmay ka hor intuusan Tehran ka dhoofin. Wararku marka waxay tilmaamaan in wadahadalladu diiradda saarayaan dukumiinti ka kooban 14 qodob oo Iran soo bandhigtay, kaas oo marka Tehran u aragto saldhigga ugu muhiimsan iyo wadaxaajoodyada soo socda iyo sidoo kale fariimo ay labada dhinac isdhaafsadeen. Haddaba maxay kula tahay adiga aragtidaada qaybta hoose ee faallooyinka noogu reeb, muuqaalka la wadaag asxaabtaada si meel dheer uu noogu gaaro. Waan kaaga mahadcelinaynaa had iyo jeer sidaad noola socoto. Fadlan haddii aadan ka mid ahayn bahdeena nagu soo biir oo channelka subscribe noo dheh, muuqaalka like noo saar si meel dheer uu noogu gaaro. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Inta aan tibinteena xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.